maanta waxaan isku diri doonaa dadka caanka kuwooda isjecel kuwooda isqaba ama kuwa wax ka dhaxeeyaanba anagoo adeegsan doona Photoshop labada qof ee ugu horeeya ayaan isku dirinaa waxa weey dayaxdal nuurshe iyo gabadhiisa sawirkan ayaan soo diyaariyay waa bal sawirka ka sheekaya miyaa laga sheekaya miyaa la moodin dayaxdal nuurshe inuu si sax ah u guursado sawirkan ayaan u diri doonaa farxiya wariyada sawirkii baynu u dirnay waxaanu ku hoos qornay meherkan goormuu dhacay walaal waan ka soo qayb gali lahaayay mise hees aroos buu soo wada dayax waynu eegi doonaa bal waxa ayna soo tiraahdo labada qof kale ee noogu xigaya ee aynu isku diri doonaa waxa weeye Amiir Qurux iyo King Ciida bariyahan waxa la leeyahay waxba ka dhaxeeya ma garanay inay run yihiin iyo inay been yihiin laakiin si kasta ay tahay waynu kala geyn doonaa markasta waxa soo mari doonaa dhanka gabdhaha sababtoo ayaga qalbi jilicsan sawirkan soo diyaariyay miyayna isku soo baxayn King Ciida iyo gabadha kale Chinese-ka ma Chinese ba wuxuu mise waa Malaysian garan mayno laakiin waxaan ogahay inaan laga shakin doonin sawirkii aynu u dirnay Amiir Qurux waxaynaanu ku hoos qornay gabadhan Chinese-ka ee jiirka ka dharagtay miyuu guursaday Ciida adigoo joogo waliba waxaan u sii raaciyay carafkaaga iska sug waxba ha ka murugooni labada qof ee kale aynu ku xigsiina waxa weey Samiixa Khal iyo Daris Lacab horta baliga dabageey Samiixa Khal bariyan xay ka dhacday Samiixa Khal waxaan u diri doonaa sawirkan Darisle ee laga qaaday maalintii dhaweed ee guursanayay laga yaabaa inay ogeyn magraansa marka waynu ogeysiinayna sawirkii baynu u dirnay waxaan ku hoos qornay bariyaha waxa social media ugu dhawmatay inay show guurka Darisle ay si ogeyd oo ka murugeysnay mid khayr qabad helay insha Allah labada qof ee kale aynu ku xigsiina waxa weey Shaadi Sharaf iyo Cabdi Fataax Yare Shaadi Sharaf ayaa waxa u diray sawirkan aad ka quruxda badan leh ee ku wada jiraan Cabdi Fataax Yare iyo gabadha Kenyaatiga waxaana ku wada Shaadi Sharaf sidan shaadiye dumaashi arrinkan waa ka qarin kari way ma garanaysa ka dhacbaa la guuri kowdi anigu waxaan in photographer sawirkan anaga qaaday marka waxa la guuri dumaashida Shaadiye Sharaf sawirkan ha tusin arrinkan ma oga ka dhacbaa la guuri marka anagu waan ka qarin kari way dumaashiday baa tahay Shaadiye ma ka wala sida ula soco aftaxyar inuu ku labaystay kowdi deeni ragana waa waxaan ku ilaahay baa u baneeyay afar dumara ee arrinka qorsoodi ha noo ahaado eeg bal waynu eegi doonaa waxay ku soo jawaabto sheekh dadka isku meheriyeen bad arki jirtay sheekh dadka kala geeyay wali hore ma u aragteen labada qof kale inoogu xigaya waxa weey Marish Beauty iyo qurux ku dhigay qosalka oo aan macnaha ku fadhin ma fiicna iska istaaji Marish Beauty waxaan u diray sawirkan ay ku wada jiraan qurux ku dhiglay iyo xaaskiisa Jiino Mulna waxaan ku ri ninkii dhanaa ee qurux ku dhiglay isku bixiyay masdana u dambeysay intuu ku soo dhaafay ayuu Afrikaan doontay la hawla tagala mid kale ogsoonaada kale waxa isleeyahay Marish Beauty meeynahayn Afrikaanyaduba maya ma walaal waa Kanadiyaan waxa kale oo ugu xigaya Shiina Culay iyo xaaskiisa waxaan sameeyay sawirkan Photoshop-ka ay ku wada jiraan Shiina Culay iyo gabadha reer Marookiyaanada sawirkii ayaan u diray waxaan ku hoos qoray oo goorma tagtay Morocco oo midhan ka soo qabsatay masuul si kastay tahay hambalyo waxa kale oo ugu xigaya Qays Qaysar iyo Iqra Albatros maadaama iyagana biluu u dambeeyay hadal hay oo la waxba ka dhaxeeya bal waynu ogi doonaa inay wax ka dhaxeeyaan iyo in kale maalmii la soo dhaafay Qays Qaysar wuxuu joogay magaalada Nadiifiya waa South Africa oo malanay anigoo taas uga faa'iideysanaya waxaan soo diyaariyay sawirkan ay ku wada jiraan gabadha South Afrikaanada ah kadibna waxaan u diray Iqra Albatros waxaan ku ri Namibia ayuu ku guursaday Qays ma lagu sheegayna qalbi yaro jabayna waa raacay waxa kale oo ugu xigay ninka naga dhimay gabdhaha Soomaaliyeed qamar sugan iyo Rayaan Bajaaj sawirkan soo diyaariyay aad ka quruxda badan kadibna waxaan u diray Rayaan Bajaaj waxaan ku ri deerayaan waa sidee qamar soo ka gabdhihii naga dhimay guurkeena goormu dhacay toliyaduna waxay ku soo jawaabi doontaa waxaan kale oo ku xigsiinaa Baabijay isaguna bilii la soo dhaafay wuxuu joogay Ruushka anoo taas uga faa'iideysanaya waxaan ku soo agdhijiyay gabar cadaan ah isla isaga ayaan u diray sawirkii waxaan ku ri sidan wariya Baabijayow war waxa marun baaniyow ninkii Baabijay waxa la dhigu guursaday horta hambal iyo saaxib kowdey ni waan kula yar kaftame mafiisii Ruushka ayaa ka dhacayniyo waa digan tan yar cadaanka ku qabsaday waa balaarkayga dawigay Baabijayow master passport ugu xigay Fartuun Balbalaarka iyo ninkeeda Cusmaan Diamond sawirkan soo diyaariyay aad ka quruxda badan leh kadibna waxaan u diray Fartuun Balbalaarka waxaan ku hoos qoray Fartuun ninkii Cusmaan ahaa ee 5 sano soo korinaysay waa kaana kala ku dul doonay mise waxaan waa been inta kulli hadday aragto sidan bay oran doontaa oh my god Cusmaano noloshayda adi waa Cusmaan Allahdo indhahayga nuurkiisa adi waa dhaqdhaqaaqa wadnahayga hadduu dhaqdhaqaaqayana la'aanta ma dhaqdhaqaaqayo muxuu dhaqdhaqaaqa uu kula guursaday Fartuune dunidana adan kugu jeclahay wax walba aan sameynayna la'aanta ma sameyn kari ar naag Soomaali oo sida aniga soor u karinaay oo u karin karta ii keena ma ku sheega Fartuunay cid kale ma waa nasraabto waxaan isku diri karin waan isku dirnay hadda waxaan sugnaa jawaabahooda iyo saacad yar kadib one day later bariyaa waxaan muuqaal u soo dhigi waayay mis weydiisin sababta madax xanuun baan ka bixi waayay timihii waaweynaa dhulka soo wada dhigay miyeeda u jeedin
dhakayaro dheer baan yeeshay bidaarta inuu soo baxday haddaba waa xilligii aynu wada eegi lahayn filciinta dadka caanka ah xilligan fariimaha u diray hadda waxa ka soo wareegay 24 saacadood 10 qofood ay aynu la hadalnay waxa kaliya ka soo jawaabay 6 qof waxaynu ugu horeysiinaa Rayaan Bajaaj xaaska Qamar Suugaani Rayaan Bajaaj waxaan u diray sawirkan ay ku jiraan Qamar Suugaani iyo gabadha kale kadibna waxaan ku hoos qoray Rayaan waa sidee Qamar Sooka gabadhiiba naga dhameeyay guurkina goormu dhacay waxay igu soo jawaabtay ma taqaanaa anaa u fasaxay maxaad ka bedeli kartaa ilaahay waxaan ka baryaa gabdhaha Soomaaliyeed inay noqdaan sidaadoo kale raggoodana ay u ogolaadaan afar xaas ee wixii ka badan sawirkan u diray Rayaan Bajaaj waynu ku filgaroonay wayna nagu ogaatay inuu Photoshop yahay waxa kale oo nagu xigaya farxiya haaska dayaxdal nurshe sawirkan u diray ku jira dayaxdal nurshe iyo gabadha kale waxaan ku hoos qoray meherkan goormo dhacay walaal waan ka soo qayb gali lahay mise hees aroos buu soo wadaa dayax iyaduna sidoo kale waxay nagu soo jawaabtay ha komisun waaye yani waxay ka wadaa hees buu soo wadaa oo markaa walaal gabadhan kale muxuu ku falay adoo jooga أول بوكي هيسان كوسو درس جرى كورين جري هدادت إلى شيرين أدوك قاعلوي جرى كدو بما يفرحيوي درت أجلك خوذا ما يقالي sidoo kale iyaduna uu nagu faantay sawirkan inuu yahay sawir Photoshop sidoo kale waxaan ugu xigaysan shaadey sharaf waxaan u diray sawirkan uu ku jira Cabdifatax Yare ninkeedu codka hore soo maqashayna waan u diray kadibna waxay igu soo jawaabtay joog haddaanan joog dhabin filmaanta hindida ku maqli jiray joog dhabin maxaa laga wadaa madris ba laga wadaa shaadey sharaf fi xalka daji weynaan ognahay inaad ka xoog weyntahay Cabdifatax Yare sidoo kale waxaan ugu xigay Amir Qurux waxaan u diray sawirka Kiin Ciide iyo gabadha kale Chinese-ka kadibna waxaan ku hoos qoray gabadhan Chinese-ka ee jiirka ka dharagtay miyuu guursaday Ciide adigoo jooga waliba calafkaaga iska sug waxba ka murgooni waxay igu soo jawaabtay tani waa been cade ana waxaan u qoray been maaha ee soo hubi bal kadibna waxay tiri dhibkayga dhaafno waa si wacan sidoo kale waxaan ugu xigay fartun balbalaarka message-kayga way eegtay wayna iska dhaaftay ma garanayn inuu akoonkan yahay akoonkeedii saxda ahaa iyo ku kale waxaan kaloo ku xigsiinaa Samiixa Khal iyaduna message-ka ma way furinba kaliya message-da waxay ka furtaa dadka ka iibsanaya cabaayadaheega intaasna xaysiisa ku noqdo Samiixay waxaan kaloo ku xigsiinaa Iqra Albatros waxaan u diray sawirkan uu ku jira Qaysar iyo gabadhan Nigerianka ah waxaan u qoray Namibia ayuu ku guursaday Qays ma lagu sheegayna waxay igu soo jawaabtay liideeda qosra waxay kale soo raacisay really nin Iqra waxaan ka yaabisay wallahi iska dhigtay iyadoo waligeed Nairobi ka bixin Soomaaliyad baatay af Soomaaliga ku weynaado walaal macaan waxa kale oo nagu xigay baabajay waxaan u diray sawirkan uu kula jiro gabadha cadaanka sidoo kale waxaan u diray codkan wariya baabajiyo war waxa marun baaniyo kadib isna wuxuu ku soo jawaabay codkan goola gula abshaanka oo awlanka oo awatada wuxuu ka wada maad faantay ana idin sheegay wuxuu ka wada muuqaal ku dhamaaday heelema subscribe like